salaanka bacdi sida aad ogtihiin waxaa socday lacag aruurintii oo dhulka loo aruurinayay iskoolka almustaqiim meel fiican ayay maraysaa lacagihii la aruurinayay weli way socdaan ilaa iyo hadda waxaa gacanta lagu hayaa 10 ilaa 15 kun welina waxbaa dhiman marka ummadda Soomaaliyeed waxaa lidinka codsanaa inaad hawshii sidii aad markii horeba aad u wadeen haddana aad u wadaan faanooli farakama qodna weli dhul aruurintii ayaa socota waa inaa kaalintiina aad ka qaadataan sida ogtihiin adduunyada waxaa waaye waxaa ku leedahay kaliya wixii aakhira u dhiibato aakhirada aad dhiibato unbaa ku leedahay marka waxaa la idinka rabaa inaa meel walba aad joogtaan aad qayb ka naqataan ama qaybtiina aad ka qaadataan sidii lacag aruuritaan aad uga qayb qaadan lahaydeen meel walba aad joogtaan koonada iyo lambarada kulli shaashada ayaa ku arki doontaan hawshii weli way socotaa marka waa inaa ka waa iskoolku wuxuu u yahay horumar weyn oo gaareen ayuu u yahay muhiimad gooni ah ayuu u leeyahay dhulkaas waxyaabo badan ayaa lagu qaban lahaa maxaan ku dhahayo wax badan ayuu u tari lahaa marka waxaa la yiri qoraansho aruurtay mulac waa jiida hadaa iskaashano Soomaaliyeey oo xoogeena iyo xoolaheena aan maxaan ku dhahayo si hagar la'aan ah aan meel iskugu keeno wax walba waa qabsan karnaa waana ogtihiin hadda Soomaaliya agoontii ayaa farihi ka batay oo maxaan ku dhahay xadka ayay ka sii baxayaan masaajidadii iyo maxaan ku dhahaa ceelashii dadka si fiican ayay u fahamsan yihiin laakiin ilaa hadda waxaa moodaa inaan lagu baraarugsanayn in iskool ilmo agoon ah loo sameeyo amba madaraso dugsi quraan ha noqoto amba macad ha noqoto in loo sameeyo inaan aad loogu baraarugsanayn ayaa moodaa marka waxaan dhihi lahaa waa in lagu baraarugaa arintaas waa in iskool aan ijaar ahayn loo sameeyo ilmaha agoonta ah sida ogtihiin lacagaha ijaarka bil walba baxaya lacag aad u tiro badan waaye marka kaalin weyn ayay maxaan ku dhahaa naga qaabili lahayd haddii aan heli lahayn dhul iskoolka u gooni ah uu leeyahay oo waqaf ah marka meel walba oo joogtaan qofka lacag soo dhiibi karto qofka dhul waqafa meel ugu yaala dhahayso dhulkan aniga waqaf uu yahay iskoolka almustaqiim ayaa ugu deeqay qofka dhahayso aad iyo aad ayaa u soo dhaweeyaynaa marka aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin wax badan ayaa qabataan wax badanna waa idin dhiman yihiin hawsha aan laba jibaarno aan saddex jibaarno weli hawl badan ayaa dhiman wax badanna waa la qabtay marka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Al-Mustaqim Foundation waxay mas'uuliyad iska saareen in ay caawiyaan caruurta agoonta ah oo ay dabaraan waxbarashadooda buugaagtooda qalimaantooda iyo dharka iskuulka ay ku dhigan lahaayeen iyaga oo kaashanaya dadka Soomaaliyeed waxaad sanadkii bixin kartaa $360 ama 6 bilood 180 ama xitaa 3 bilood $90 oo kaliya si aad u caawiso wiil ama gabar yar oo agoon ah oo aan haysan waxbarasho iyo garab adigoo helaya xiriirka qofkaad waxbarashadiisii damaanad qaaday waxa kaliya adduun iyo aakhira ku anfacaya waa sadaqo waliba agoonta waa laga dardaarmay shaah iyo shaxaad shilimaad aad ku bixiso ha ku badbaadi waynin qof dhan mustaqbalkiisa